السلام عليكم سودو داوده magacaygu waa Satar maanta waxaan doonayaa inaan ku sharxo filim Korean oo lagu magacaabo Thug Teacher bilowga filimku waxaan ku aragnaa nin lagu magacaabo Nadaki oo la dagaalamaya koox dhalinyaro ah sida muuqatana waxa uu iska difaacayaa isaga oo kaligiisa ah waxyar kadib waxa uu laanayaa dhamaantood maadaama uu hore uga tirsanaa maafiyada intaa kadib markaan muuqaalka waxaan ku aragnaa 7 sano kadib markay ka soo wareegatay dhacdada Nadaki oo saaran baaskiil yar waxa uu ka tagay dhammaan shaqooyinkii maafiyada wuxuuna bilaabay inuu u noolaado sida dadka caadiga ah waxa uu dhameeyay kulliyadda education ama macalinimo waxa uu imaanayaa guri si uu u kireysto oo ugu noolaado inta uu ka helay shaqo laakiin ninka guriga waxa uu sheegay in gurigan uusan isagu munaasib u ahayn balse kori hoosba Nadaki waxa uu go'aansanayaa inuu dego guriga maadaama gurigan uu qarashkiisa aad u jaban yahay intaa kadib muuqaalka markaan waxaan ku aragnaa koox dhalinyaro ah oo dhigata dugsiga sare balse waxay u hanjabayaan macalinkooda si ay u cagjuguleeyaan maalinkii xigay macalinkii oo lagu magacaabo Back waxa uu imaanayaa xafiiska si maamulaha ugu sheegay inuu rabo inuu iska casilo shaqada maadaama uu dhowr jeer ardayda kala kulmay hanjabaado wuxuuna maamulka u sheegay inuusan u dulqaadan karin dabeecadda xun ee ardayda intaa kadibna maamulaha waxa uu iskugu yeerayaa dhammaan macallimiinta wuxuuna u sheegayaa in ardayda ay marin doonaan laba mid in ardayda xun ee iskoolka dhigta loo hanjabo lana ciqaabo ama in iskuulka oo dhanba laga ceeriyo intaa kadibna waxa uu macallimiinta ka dalbanayaa macallin cusub oo xaliya booska uu ka baxayo macallinkii Back ka oo aad uga sheegtay ardayda mid kamid ah macallimiintii oo lagu magacaabo waxa uu si degdeg ah ula xiriiriyaa Nadaki oo horey u ahaan jiray ardaygiisa aadna ugu kalsoonaa wuxuu u soo bandhigayaa shaqadii si amar la'aan Nadaki uu ka aqbalaya kadibna waxa uu isku diyaarinayaa siduu ku aadi lahaa iskoolka maalinkii xigay waxaan aragnaa Nadaki oo saaran baaskiilkiisa yar kuna sii jeeda iskoolka intii uu wadada sii socday waxa uu ku arkayaa koox ardayda kamid ah oo sigaar ku caweysa banaanka iskoolka sida caadiga ah ardayda looma ogola inay sigaar cabaan Nadaki waxa uu ardayda u sheegayaa khatarta uu leeyahay sigaarka balse ardaydii kama yeelayaan hadalkiisa taa beddelkeedana waxay rabaan inay la dagaalamaan Nadaki oo aan hadlin waxa uu garaacayaa qayb kamid ah ardaydii kadibna waxa uu soo galayaa iskoolka markii uu yimaado xafiiska waxa soo dhaweynaya maamulihii iyo dhammaan macallimiintii kale balse waxay uga digayaan khatarta ardayda iyo inuu ka feejignaado intaa kadibna Nadaki waxa uu soo raacayaa macallimad lagu magacaabo Enisa waxa ay keenaysaa fasalkiisii oo xiisada siin lahaa markii uu soo galo gudaha fasalka waxa uu arkayaa ardaydii oo aan lahayn wax nidaam ah sidoo kale fasalkana aanan degnayn halka ardaydana ay iska indhatirayaan Nadaki oo xanaaqsan waxa uu si aad ah u garaacayaa miiska si ay dareenkooda u soo jeediyaan intaa kadibna waxa uu ka dalbanayaa in xaaladda fasalka ay dejiyaan ardaydii fasalka waxa kamid ah kuwii sigaarka cabaya ee uu ku soo garaacay banaanka iskoolka iyagoona markaan aad uga baqaya isaga intaa kadib Nadaki waxa uu sabuurada ku qorayaa magaciisa si uu isku baro ardayda balse hal mar fasalkii oo dhan way ku wada qoslayaan maadaama magaciisu uu leeyahay qosol laakiin taasi kama hor istaagin inuu isbaray iyaga hadalkiisana uu sii wato markii ay dhamaatay xiisada qayb kamid ah gabdhihii waxay ku harayaan fasalka iyaga oo si caadi ah u sheekeysanayay balse mid kamid ah gabdhihii oo lagu magacaabo Jion waxay saaxiibadeedu weydiinaysaa sidii ay lacag ku heli karto Jion waxay u muuqataa ardayda ugu dhiiran fasalka sidoo kalena diyaar u ah inay qabato wax walba oo ay ku heli karto lacag waxyar kadib Jion waxa uu imaanaya laba kamid ah ardayda sida muuqatana waa kuwii Nadaki uu ku soo garaacay banaanka iskoolka waxa ay maqlayeen hadalkeeda kadibna waxay u sheegayaan inay u hayaan shaqo kooban oo ay ku qaadanayso lacag badan Jion si fikir la'aan way soo dhaweynaysaa shaqadooda halka gabdhihii saaxiibadeeda ahaana ay uga digayaan inay ku dhaqaaqdo falkan gaar ahaanba inay raacdo ardaydan xun intaa kadib habeenkii Nadaki oo baaskiilkiisa yar waxa isku soo hortuuraysa gabadh kadibna waxa ay ku dhacaysaa dhulka si kadibna Nadaki waxa uu istaajinayaa baaskiilka kadibna waxa uu isku dayayaa inuu caawiyo halka labadii arday ay ku soo heshiyeen fasalka iyaguna ay ka duwayeen muuqaal si hadhow ay ugu suurad xumeeyaan isaga taasi oo ay horeba u soo qorsheeyeen balse waxyar kadib waxa uu imaanayaa arday kale oo saaran baaskiil si hadal la'aana waxa uu labadii kale ka qaadayaa teleefonka kadibna waxa uu ka daleedayaa muuqaalkii ay duween waxa lagu magacaabaa Namhon waa arday ay ka dambeeyaan badi ardayda kale halka markaana uu macalinkiisii ka badbaadiyay falkii ay u dhigeen ardaydii kale intaa kadibna maalinkii xigay Namhon oo la socda saaxiibtii taa oo lagu magacaabo Yeyeon waxa ay imaanayaan iskoolka halka labadii wiil oo markaan la socdo hogaamiyahoodana ay taagan yihiin meel u dhow iyaga waliba iyagoo aad uga careysan falkii uu Namhon xal sameeyay dhinaca kale macalinkii Nadaki isaguna markaan waxa uu macallimiintii kale weydiinaya waxa ay ka ogyihiin Namhon waxay u sheegayaan markii uu ahaa dugsiga sare inuu haysan jiray koox ardayda kale iskuulkuna ay ka cabsan jireen laakiin markii uu noqday dugsiga sare uu iska dhaafay arinta oo idil xaaladiisuna ay degtay wuxuuna noqday mid waxbarashada ku fiican gaar ahaan waliba markii uu saaxiib la noqday Yeyeon isla xilligaana Namhon saaxiibtiisa Yeyeon oo ku jirto fasalka waxa ay saaxiibadeeda la wadaagaysaa inay hesho shaqo heshiisna ay la gaartay shirkad goordhowna ay shaqada bilaabi doonto saaxiibadooda arinta waxa ay ka dhigtay kuwa faraxsan dhamaantood laakiin labadii wiil oo hogaamiye u ahaa Dayon iyo kooxdiisa kaleba waxay kor ka eegayeen Yeyeon iyo saaxiibadeed waxa ay bilaawayaan inay ku jeesteesaan balse Yeyeon saaxiibkeeda Namhon waxa uu arkayaa waxa ay sameynayeen marka hore waxa uu isku dayayaa inuu caradiisa xakameeyo maadaama maamulku uu go'aan dhab ah ka qaatay ardayda iskuulka isku dhex dagaasha isagana uu rabin inuu bilaabo foodo
laakiin markii mid kamid ah kooxdii Dayon uu dharbaax ku dhuftay isla markiiba Namjoon waxa ka dhamaanaya dulqaadkii kadibna waxa uu bilaabayaa inuu garaaco ilaa uu soo dhaxgalay macallinkii Nadaki waxay kadibna maamulihii iskoolku waxa uu maqlayaa dagaalka kadibna waxa uu go'aan ka gaarayaa in Namjoon iskoolka laga ceeriyo balse macallinkiisii Nadaki waxa uu isku dayayaa inuu maamulka ku qanciyo in markaan kaliya fursad la siiyo maxaa yeelay Nadaki waxa uu ogaayay in ardayda kale ay foodo u bilaabayaan isaga kuna qasbeen inuu dagaalka galo wuxuuna mar kale maamulihii ka codsanayaa in go'aankiisa uu ka laabto mar kaliyana uu saamaxo ilaa ugu dambeyn uu maamulihii aqbalay codsigii Nadaki intaa kadibna markii ay dhamaatay xiisada Nadaki iyo macallimadii way soo raacayaan iyaga oo dhex sii socdo waxay arkayaan Jion oo maamulaha maqaayada ay ka shaqeyso aad u canaananaya ilaa uu caayo balse Nadaki oo isxakameyn waayo uu ku soo cararaya dhinaceeda kadibna waxa uu garaacayaa maamulihii macallimadii oo falka kor ka daawanaysay waxa soo jiidanaya ficilkii uu sameeyay Nadaki iyadoo waliba aad uga farxayda dhinaca kale Dayon iyo qayb kamid ah kooxdiisu waxa ay kulmiyaan xilli habeen ah laakiin markan waxa ku cusub arday lagu magacaabo Joy hogaamiyahoodu waxa uu u sheegayaa in iskoolka laba qofood aysan ka talinaynin balse hal qof uu soo hareeyo kaliya taa bedelkeedana ay iyaga iyo kooxda kaleba geli doonaan dagaal midkii raayana iskoolka looga dambeyn doono waxayna ardaygii Joy u sheegayaan in warkan uu gaarsiiyo Namjoon iyo saaxiibadiisa intaa kadibna Joy waxa uu imaanayaa Namjoon kadibna waxa uu sheegayaa in kooxdiisa uu diyaarsado lana dagaalami doonaan Dayon iyo saaxiibadiisa kale Namjoon isla markiiba wuxuu u diidayaa si cad wuxuuna isaga tagayaa goobta isla xilliga Namjoon waxa haddana soo wacaya mid kamid ah saaxiibadii ka oo ka codsanaya inuu ka celiyo koox kamid ah ardaydii kuwa uu aad ugu hanjabayay isaga laakiin Namjoon haddana si cad uu ka diidayaa isagoo aad mooday inuu iska ilaalinayo inuu galo dagaal dhan intaa kadibna mid kamid ah macallimiintii oo lagu magacaabo Lee waxa uu ogaanayaa in Nadaki hore uu ahaan jiray mafio dadkana uu garaaci jiray balse hadda uu noqday macallin isla markiiba waxa uu la wadaagayaa arrintii macallimiintii kale wuxuuna u sheegayaa inuu hadda uu doonayo inuu noqdo hogaamiyaha ardayda markii ay maqleen hadalka macallimadii iyo kuwa kale oo aad u jeclaa isaga waxay qolka uga baxayaan si degdeg ah Lee waxa uu ogaa in hadalkan uu ku caroon doono Nadaki maadaama ay saaxiibtinimo fiican kala dhaxayso macallimadii isla waqtigaana Joy oo raba qaabkii uu kaga xanaajin lahaa Namjoon waxa uu tusayaa sawir saaxiibtiisa Yeyron oo cabaysa sigaar kadibna waxa uu sheegayaa inuu u diri doono shirkadda ay ka shaqeynaysay si shaqada looga soo ceeriyo isla markiiba Namjoon oo aad isku xakameyn karin rabana in qoftiisa aan shaqada laga soo ceerin waxa uu aqbalay dagaalkii labada koox ee ardayda wuxuu waqtiga wareegaba waxa la gaaray maalinkii la isku balamay waxa ay ku balamayaan goob buundo hoosteeda ah si aan loo qaban macallimiintuna aysan u ogaanin intaa kadibna markii ay iska hor yimaadaan labadii koox Dayon waxa uu isku dayayaa inuu aad uga cariisiyo marka hore Namjoon isagoo ku dhahaya erayo oo raba inuu kaga xanaajiyo isla xilligaana qayb kamid ah macallimiintii waxay ogaanayaan dagaalkii ardayda kadibna waxa ay soo aadayaan dhinacii si ay u kala celiyaan markii ay bilaawatay dagaalka isla markiiba waxa soo muuqanaya Nadaki kadibna waxa uu ku qaylinaya inay joojiyaan dagaalka balse ardaydii ay ku jeesjeesayaan oo maba ixtiraamayaan xitaa uma aqoonsana inuu yahay macallin kadibna waxay isku bahaysanayaan labada kooxba sidii isaga u dili lahaayeen isaguna waxa uu isku dayayaa inuusan si aad u garaacin maadaama ay yihiin ardaydiisa wax yar kadib way ku soo goowanayaan balse hal mar waxay ka warhelayaan in Namjoon uu difaacayo macallinka muddo kadib macallimiintii oo goobta yimaaday waxay ka warhelayaan Nadaki oo ardaydiisa waaninaya bedelkii ay dagaalami lahaayeen intaa kadibna markii uu xaliyo dhibaatadii iskoolka ka jirtay ardaydii inuu heshiisiyo maamulka iskoolku waxay bilaabayaan inay shaqada ka ceeriyaan iyagoo aaminsan in isagu uu yahay qofka ardayda sii geliya dagaalka Namjoon iyo badi ardaydii kale waxay ogaanayaan in macallinkoodii shaqada laga ceeriyay waxay u muujinayaan ixtiraam iyo qadarin iyagoo u sheegaya inay xasuusan doonaan isaga iyagoo dhammaan ay ka wada muuqato murugo waxay sagootinayaan macallinkoodii intaa kadibna Nadaki waxa uu imaanayaa aabihiis oo aad u careysan maadaama uu ogaaday in shaqada laga soo ceeriyay waa canaananayaa marka hore balse ugu dambeyn waxa uu sheegayaa inuu og yahay xaqiiqda iyo wax jiro oo idil sidoo kale waxa uu sheegayaa inuu og yahay in ardaydu uu isagu ka dhigay kuwa heshiis ah ugu dambeynna muuqaalku waxa uu soo dhamaanayaa iyaga oo tagaya goob joog sare ah halkaana kaga calaameynaya goob ay ka dhisi doonaan iskuul dhacdada filimkan xiisaha leh waxaa la soo daayay 2019 dhamaadka muuqaalka haddaba daawada waxaan rajeynayaa inaad waqti qurux badan ku qaadatay muuqaalkan aad ku riyaaqday qaado waqti wacan